waxaan idinla wadaagayaa qiso aanay soo martay weliba xagga waalidka qusaysa. yaraanteydii maalmaha kalena iskuul baan dhigtaa, jimcaha iyo khamiistana waxaan aadaa baadiyaan aadaa oo reerkan caawiya. waxaa dhacday galabtii jimcaha markaan soo laabanayay ayaa hooyo waxay igu tiri, hooyo biyo soo dhaani. kadib waxaan ku dhahay, hooyo magaaladu way xiran tahay, waayo 2014 markii Jabuutiyaanka soo galeen xilliyadaas ahayd. marka magaaladu way xiran tahay, habeen lama gali karo, waqtiga igu dhammaaday, anigana preschool aan leeyahay, waa inaan baxa. hooyo ilamaysan hadlin, waa iska soo baxay. qiyaastii 10 daqiiqo xitaa maysan dhammaynaan filaya. odax baa ama ragaad baa lugta iga muday, bisna igu go'ay. waxaan isku dayay inaan iska bixiyo, iska saari waaye. waan fariistay. baadiyaha iska taqaanaan toorey yar ama bilaabo yaraa dhinaca igu jiro, soo baxsaday odaxdii meesha ku qoday inaan ka bixiyo, aan ka saari waaye. waxaan isku dayay inaan odaxdii ku jirto inaan socdo, waa soco waaye. waa yaqiinsaday marka inay hooyaday isan bixitaankeeda ku faraxsaneen, aan khaldanahay. dib baan u laabtay, gurigaan tagay. guriga markaan tagay dhahay, waree maxaa kugu dhacay? hooyo geed baa lugta iga soo muday. waa soo fadhiistay. kadib meeshii odaxdii farfartay hooyo inaad iga bixisay isku dayday, way bixi weyse. waxyaabaha marna aan ilaahay waxaa ka mid ah, hooyo odaxdii meeshii dhinacii u dhawaayay maqaarka ka jartay lugteydii, oo wallaahi aanan dhaqnayn oo carradi leh. hooyo way soo qaaday, ilkaheeda odaxdii iga bixisay. odaxdii ilaan meesha ku dhaganeed saas iga siibtay. kadib waan fariistay, waxaan dhahay biyaan soo dhaaninaya. maya dhahday, biyo ma soo dhaaninaysa, iska joog, waa lugta ku xanuunay. mayaan dhahay, waa soo dhaaninaya. waa istaagay, biyaan soo dhaaniyey, iska soo laabtay. markaas hooyo waxay ku dhahday, beri iskuulaa leedahay, baxada. markaas baan ku dhahay, hooyo dee waqti waa dhacay, magaaladii habeen lama gali karo, askarta xilli habeen haddii la galo halis waayo, marka baxayo. waxba arki mayso, hooyo ducadeeda kula jirtee bax. waan soo baxay. anigu waxaan isleeyahay dee haddii caawo xaaladda hadday xumaato, wax korka magaalada markaad galaysa kor wax ka aragti kasoo laaba, waqtigana wuu kugu dhacay. ilaan magaalada iyo meesha aan joogo 3 saaca loo socdaa. so already marka habeenaan ku aadaya magaalada, 1 saaca habeen magaaladaasaan ku aadaya. meeshii odaxda igu muday ama ragaadka igu muday markaan marayaba gaariya iga hor imaaday. waryaa ina Axmed, xaggee u socotaa? warnimo magaaladan u socdaa. markaasuu igu yidhaahday, warnimo gaariga soo raac, annagaa beer halkan aan tagaynaayo, annagaa laaba rabnay, soo raac, annagaa ku wadayna. gaarigaan soo raacay. gaariga markaa soo raacay, magaaladii si dhaqsi oo magaaladii yaa lay geeyey. hooyaan soo wacay, telefoon yaraan watay. hooyaan soo wacay, hooyo waan tagay. haye hooyo, ma nabad tagtay? haa hooyo, waa nabad tagay. haye. marka mararka qaar waalidka iyagoo aanan ku dhihin, dee erey aanan ku dhihin, in yar oo qalbiga ay kugu qabtaano ayaa ku saameyn karto. weliga ka fogo, iska ilaali. marka maalintaas ayaan yaqiinsaday, hooyaday wax dhibaata iima quurto, dabcan hooyo. laakiin haddana maalintaas ciqaabta yar ama kasta yaraan maray, waxaan aaminsanahay dee amarkaas yar ee aan diiday inay iga soo gaartay. be careful, iska ilaaliya waalidiinta. asalaamu calaykum.